ugu wanaagsan haddii madaxweyne laga dhigo oo aan lala shaqaynayn waxba soconmaya intaa horta waxa loo baahan yahay Soomaaliduna wada xasuusnaato haddana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha mustaqbalka Maxamed Cabdirasaaq soo dhawow waxay awoowayaasheen diideen in Soomaaliya la iska soo galo oo la gumaysto waxay diideen in la maqooniyo waxay heshiisiyo isdifaacid ah saaxiibtinimo iyo ganacsi la galeen awoodihii reer Yurub waxay kaloo dagaalo la galeen oo iska difaaceen awoodahaas markay u arkeen in xadgudub uu jiray heshiisyadii la galay xitaa markii si kale loo caabin waayay tusaale ahaan daraawiishtii Soomaaliya waxay noqotay wadankii ugu horeeyay ee boqortooyada Ingiriiska ay kula dagaalanto diyaaradda sanadka diyaaradaha Soomaaliya lagu la dagaalamay waa 1919 waa isla sanadka Soomaalida halkan laga raraay marka waxaan isiri talow miska warhayeen dadka halkan laga soo baxay miyay kuwaas ayaga ka soo saarayeen Ingiriiska dhulkaas waa waxyaalo u baahan inaan taariikhdeena dib u baarno maxaa yeelay haddana annaga aanan ka hadlin taariikhdeena oo annaga aanan aqoon taariikhdeena oo aanan qorin dan taariikhdeena cid kale noo sheegaysa su'aasha kale oo aan isweydiiyay waxay tahay dadka geesinimadaas lahaa aragtidaas fog lahaa waqtigaas isku duubnidaas lahaa miyeenan ka soo jeedin annaga maxaa noo diiday in wixii danteena ah aan ka wada tashano oo isku raacno oo ka wada shaqeyno maxaa naga hortaagan taariikhdeeni dhaweyd haddaan usoo noqdo caawa halkan wax badan baa looga hadlay waxqabadkii dadkii naga horeeyay aabahay uu ka mid yahay Allahu naxariisto intaan dagaaladii sokeeye la galin oo burburka dalka ka dhacay Soomaaliya waxay ahayd wadamada ugu horumarsan Afrika oo horumar weyn oo la taaban karo gaaray dhaqaalaha waxbarashada iyo militariga muddo yar gudaheed tusaale ahaan Soomaaliya waxay lahayd ciidanka labaad ee Afrika ugu tirada badan 156,000 waxaan ku xignay Nigeria waa wadan 140 milyan ah annagana waxaan nahay 10 milyan mar walba ma ahayn 156,000 laakiin markii peak dagaalada aan ku jirno ugu sareeyay ciidamadeena waxay tababar jireen ciidamada kale Afrikaanka ah ee wadamadooda dhibka ka jira dhinaca dhaqaalaha waxaan durbo bilawnay inaan dunida u dhoofino xoolo kalluun dalaga beeraha oo ugu weynaa markaas muuska sokorta markii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee adduunka oo East iyo West la kala ahaa Ruush iyo Mareykan ay hayeen oo annaga markaas Soviet Unionka aan isla soconay waxaan uga iibsan jirnay diyaaradaha iyo dabaabaadka iyo madaafiicda kalluunka iyo kheyraadka badda ku jira maanta yaa ilaaliya baddan yaase laga ilaaliyaa baddan yaa laga ilaaliyaa badda nacam حتى dhulkeena iyo badeena meesha istiraatiijiga ah ay ku yaaliin Soomaaliya meesha ay ku taalo macnaha marinka Baabul Mandab badda cas iyo badweynta Hindiya waa meel aad iyo aad waxay ka mid tahay meelaha adduunka ugu istiraatiijisan haddii aan service kaliya bixino oo kira ka qaadno qof kasta oo Soomaali ah waxba ka soo gaar lahaa taas wadankeena wuxuu lahaa 286 warshadood 286 warshadood oo ay lahaayeen dawladda iyo shirkado khaas ah waxaana ka mid ahaa warshadii Jowhar iyo Timareere ee Sokorta warshadii Sibirka ee Berbera
warshadii safaynta shidaalka warshadii nafaqada beeraha warshadii daawooyinka warshadii hilibka ee Kismaayo warshadii Ethiopia Afgooy warshadii tarqiga sigaarka ee Xamar warshadii kalluunka ee Qandala warshadii caanaha warshadii dhalinta korontada ee dhalin jirtay ama tamarta warshadii beel warshadii baastada iyo kuwa kale badan 286 warshadood waxaan ugu talagalay dadka dhalinyarada ah oo isleh Soomaaliya waxba ma ahayn inay ogaadaan meesha ay ka yimaadeen dhinaca waxbarashada caawa waa taabateen tusaale ahaan maanta marka la cabirayo wadamada horumaray waxyaalaha lagu qiyaaso waxa kamid ah waxbarashada ilaa heerka dugsiga sare ma ahan kaliya inay tahay free ama lacag la'aan ay u tahay muwaadinka laakiin inay khasab tahay ilmaha guriga kuma hayn kartid waxbarasho la'aan Soomaaliya waxay gaartay taas 700 ilaa heer jaamacadeed ayaa wuxuu ahaa free ama ololaheena uu sameeyay waa wax aan Soomaaliya ka dhicin ilaa iyo 1969 ee helaan malayna doorashadii ugu dambeysay oo tartamo loo gal in qof musharax ah uu tago tuulooyin iyo degmooyin waddanka oo dhan ku wareego oo dadku uu kala hadlo waxa dantu waxa dhici kara waxa sidee uga qayb qaadan karaan information uu sidaan idin siinayo ku baraarujiyo inay ayagu ku xiran tahay isbedelku wuxuu kugu xiran yahay oo ka bilowda adiga dadkaasna ay aad u soo dhaweeyeen sababtoo ah intay badankooda jireenba noloshooda ma aysan arag hadalka waa dheereeyay halkaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo aadna uga mahad celiyo soo dhaweyntii aan ka helay halkaan dalka Ingiriiska waxaan rabaa walaalayaal inaad si toos ah ay noola soo xiriirtaan ka fikirtaan qof walba waxa uu sameyn karo qof baa waxa laga yaabaa inuu la hadli karo odayaal dhaqameedka qof baa waxa laga yaabaa inuu xildhibaanka la soo xulo uu ku leeyahay maaragtay saameyn ama uu wax u sheegi karo qof idinka qaarkiin waxa laga yaabaa inaad noqotaan xildhibaano in Soomaaliya cid kale uma maqnee sida aan idinkugu sheegay awoodiina inta ay laagtahay iyo lacagta xawaalada adreesaan haddii qofka uu xisaabtamo uu ku baraarugo meesha waxa awoodiisa inta ay laagtahay then waxa suuragal ah in Soomaaliya wax iska bedelaan insha Allah Soomaaliya wax iska bedelayaan aad u mahadsantiin markaa